السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشير حاشي waxaa jira abdeedyo ku saabsan wixii ka soo baxay ama dagaaladii ugu dambeeyay ee dhex marayay Israa'iil iyo Iiraan. Israa'iil oo ay garab taagan yihiin wadamada reer galbeedku dagaalku muddo ayuu socdaa usbuuc iyo maalmo lagu kabay ah, laakiin hagacdii hore dagaalku wuxuu ku bilowday Israa'iil oo duulaan ku qaaday waddankii Iiraan saaba la socotaan oo diyaarado ku weerartay meel ay joogeen ciidamada militariga iyo saraakiisha dowladda Iiraan. kadib Iiraan waxa ay samaysay aargoosi dagaal rogaal celisa. dagaalkaas marka reer galbeedku waxa ay moodayeen inay iska caabi karto Iiraan, laakiin waa inay iska caabi karto Israa'iil, laakiin waa lagu faraxashay Israa'iil saad la socotaanba oo waxa ay gebi ahaanba difaaci weysay difaacii cirka. marka arrimo badan oo update ah jira oo ku saabsan wasiirka arrimaha dibadda Iiraan oo tegay Moscow, sidoo kale Kuuriyada Waqooyi oo iyaduna sheegtay in haddii loo baahdo madaxda nuclearka ay siinayda Iiraan. waxaa kaloo jira waddanka Sacuudiga oo isaguna sheegay cambaariyay duulaankii lagu qaaday Israa'iil, ay maaragtay duulaankii Mareykanku ay ku qaadeen Iiraan oo ay sheegeen inay goobo fariisimo ah oo nuclearku ay yaalaan ay duqeeyeen. marka arrimaha hadda socda intooda badan waa arrimo diblomaasiyadeed. waxaadna moodaa Iiraan in ay la soo baxday awood ku saabsan inay tiri waxaan xiraynaa gebi ahaanba marinka meesha lagu magacaabo Hundus oo ah marinka saliidda ama maraakiibta ay maraan inta ugu badan caalamku 25%. laakiin Iiraan ayada laftirkeedu waxay ka mid tahay wadamada saliidda dhoofiya. haddii dagaalka marka uu sii socdo waa ay ku qasbanaanaysaa. waxaa kaloo jira abdeedyaha ku saabsan madaxweynaha Mareykanka sidoo kale oo maanta hadlaya wuxuu sheegay in regime change wax la yiraahdo ay ku sameynayaan Iiraan, laakiin aysan suurtagal ahayn. Israa'iil oo iyadu sheegtay in ay fashilantay duulaankii lagu qaaday saldhigyadii nuclearka Iiraan gebi ahaanba ay ahaa mission fashilmay. waxaa kaloo jira in saldhiggaas markii horeba Iiraan ay kala baxday hubkeeda nuclearka oo aysanba oolinba xilliga la aaday maalmo ka hor ay Iiraan kaba diyaar garowdayba. marka isku soo wada duubo arrimaha bariga dhexe waxa uu noqonayaa mid cakiran. dagaalku hadduu sii socdo waxaa joogsanaya saliidda carabtu ay u dhoofin jirtay wadamada reer galbeedka. waxaa meesha ka baxaya isku xiraanshihii siyaasadda. waxa ay helaysaa Iiraan wadamo badan oo adduunka awood ku leh oo la soo safta. dagaalku waxa weeye marka la fiiriyo Russia oo kale kuma soo degdegayaan inay Iiraan awood ahaan ay soo garab istaagaan, laakiin diblomaasi ahaan sababta Mareykanka ma uusan faragashan ciidan ahaan Ukraine markii Ruushku ay dagaalka ku galeen, laakiin dhaqaale iyo wuxuu ku bixiyey asaanad military. Ruushku waa laga yaabaa inuu sidaas oo kala sameeyo, laakiin labadaas way is eeganayaan. waxaa kaloo jira arrimo soo baxaya oo ku saabsan Iiraan inay gebi ahaanba doonayso in dagaalku uu sii socdo oo meesha laga saaro jiritaanka dowladda awoodda leh ee Tel Aviv ka jirta ee Israa'iil. waana arrin inta badan wadamo aamusan oo adduunka awood ku leh oo aan reer galbeedka la jirin ay aaminsan yihiin in Iiraan ay isdifaacdo ay dani ugu jirto iyaga. marka kacaanka Iiraan ninka hogaamiye Ayatullaahi Khomeini waxa uu sheegay in dagaalku uu soconayo ayna Iiraan ku jirto isdifaac, halka Israa'iil waagii hore ay iyadu ahayd duulaan, laakiin filan waa ku noqotay markii gantaaladii plastic ahay ama ahay kuwii maaragtay Iiraan ay soo riday ay soo mareen saldhigyadii difaaca cirka ee wadamada Mareykanka iyo ay ku lahaayeen marinka ama sida saldhigga Faris oo weliba haddana Ciraaq ay soo dulmareen oo Mareykan ay joogaan. waxay kaloo soo dulmareen Urdun iyagoo cid qabatay aysan jirin. aakhirkiina ay Tel Aviv xataa Israa'iiliyiinta difaacooda cirkooda ay soo burburiyeen oo ay soo garab mareen, kadibna meeshii loogu talagalay ay ku dhaceen gantaalada Israa'iil baalkii lagu soo riday oo Iiraan ay soo riday. arrimahaas ayaa waxa ay ku noqotay mucjiso in Iiraan sidii la filayay
ay ka awood badan tahay. reer galbeedkuna intooda badan waxa ay heshiis la galaan qofka ay u arkaan in ay awood leeyihiin, indha baqa ay leeyihiin. reer galbeedku ma laha wax la yidhaahdo dimuqraasiyad, iyo weliba ma lahan cabsi ah xuquuqul insaanka. marka marnaba dhici maydo dowladda Iiraan wadamada reer galbeedka ama Yuhuudda ama Israa'iilka kuwa taageerayo kale inay ciidamo gudaha Iiraan haba yaraatee ay galaan, sababtoo Iiraan waxay ku taallaa dhul juqraafiyad ahaan adag.